qof walba oo inaga mid ah waxa uu jecel yahay inuu ku noolaado nolol degan oo ka fog culayska la dhaqanka bulshada iyo waliba xaqiijinta guusha. sidaa daraaddeed dadka qaarkii waxay raadiyaan umuuro iyo waxyaabaha ay ku heli karaan guusha ay naftooda la doonayaan. haddaba waxaan ku soo gudbinaynaa haldoorkii muslimka iyo halyeegii mareegta feerka kaasoo noolaa 1942 ilaa 2016. waa feeryahan caan ah oo u dhashay dalka Mareykan Muhammad Cali Kalay taariikhdu markay ahayd 17 January 1942. waxa uu ku dhashay magaalada Louisville ee gobolka Connecticut ee ku yaala koonfurta Mareykanka. Kalay oo ka dhashay qoys haysta diinta Masiixiga ayaa waxa waalidkiis ugu wanqaleen magaca Cassius Marcellus Kalay Jr. Muhammad Cali waxa uu ku guuleystay tartanka miisaanka culus tiro 3 jeer ah. sidoo kale waxa uu muddada 20 sano ah ee ku dhex jiray ciyaaraha feerka ku guuleystay inuu noqdo horyaalka adduunka sanadii 1964, 1974 iyo 1988. sanadkii markii uu ahaa 1999 ayaa Kalay loo aqoonsaday inuu yahay ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee caalamka soo mara qarnigii 20aad. Muhammad Cali Kalay waxa uu caan ku ahaa go'ismada ama gasta faraha badan taasoo dib u keeni jirtay feeryahanada isaga la tartama. waxa kale oo uu Kalay ku caan baxay intii uu feerka ku jiray feerka degdega ah. 1964 ayaa ahayd markii ugu horeysay uu Kalay si la yaab leh ugu guuleystay feeryahankii ahaa horyaalka miisaanka culus ee lagu magacaabi jiray Sonny Liston. waxaana Kalay isla mar ahaantaasi la wareegay soonka cadaynta u ah inuu noqday horyaalka adduunka ee feerka miisaanka culus. Kalay oo markaa da'diisu ahayd 22 sano ayaa noqday feeryahankii ugu da'da yaraa ee ku guuleystay soonka feerka miisaanka culus taariikhda adduunka soo mara. muddo yar kadib markii Kalay uu noqday horyaal ayaa waxa uu si lama filaan ah u warbaahinta caalamka uga sheegay inuu qaatay diinta Islaamka sanadii 1965. markii uu Kalay si rasmi ah ugu biiray diinta Islaamka ayaa waxa uu magaciisii hore u bedelay magaca Islaamka ee Muhammad Kalay. waxa uu qaatay diinta Islaamka isagoo aan wax dan ah ka lahayn, waxaana xitaa dhici kartay inuu Kalay talaabadaasi ku waayo taageerayaashiisii aadka u tirada badnaa. laakiin waxaa dhacday taasi bedelkeeda oo ah in taageerayaasha iyo shacbiyadda uu Kalay ku lahaa gudaha dalka Mareykanka iyo caalamka intiisa kaleba ay aad u sii kordheen. sanadii 1966 ayaa Muhammad Cali Kalay laga qaaday imtixaan ku saabsan caafimaadkiisa, waxaana la sheegay inuu ka qayb gali karo dagaal ay dowladda Mareykanka qayb ka ahayd oo xilligaasi ka socday dalka Vietnam. taasina waxay la macno ahayd in haddii uu Kalay dagaalka ka qayb qaadanayo guud ahaan ka tago feerka iyo waxbarashadiisa kaleba. laakiin Kalay oo loo yaqaan dhiiranaan ayaa qaadacay arrinkaas oo waa uu diiday inuu dagaal la galo sida uu hadalka u dhigay dad masaakiin ah oo u dhashay dal ka tirsan dunida soo koraysa. Kalay waxa uu sidoo kale si cad u sheegay inuu gabi ahaanba ka soo horjeedo dagaalka Mareykanka ay ku qaadeen Vietnam oo masaafo ahaan aad uga fog dalka Mareykanka. waxa uu sheegay in dagaalkaasi uu yahay mid gardarro ku ah shacabka reer Vietnam. sanadii 1967 oo markii Kalay uu gaaray guulihii ugu badnaa ee dowladda Mareykanka ka xayuubisay soonka horyaalka feerka miisaanka culus ee adduunka. sababtoo ah waxa Kalay lagu eedeeyay inuusan wadani ahayn bacdama uu diiday ka qayb qaadashada dagaal ka socda dalka Vietnam. muddo dhan 3 sano Kalay kama uusan qayb galin wax tartan feer ah, laakiin waxa uu feerka mar kale dib ugu soo noqday sanadii 1970. The Rebel in the Jungle Muhammad Cali uu qayb weyn ka ahaa ayaa bishii Oktoobar 1974 lagu qabtay caasimada dalka lagu magacaabi jiray Zaire ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. Kalay oo ahaa tartamo u socday inuu dib u soo cesho soonka horyaalka feerka miisaanka culus ayaa wareegay 8 feer la tuuray feeryahankii George Furlong oo markaasi ahaa horyaalka adduunka. Kalay waxa uu sidaas darteed mar labaad dib ugu guuleystay soonka horyaalka adduunka ee miisaanka culus. sidoo kale waxa uu Kalay mar saddexaad sanadii 1988 ku guuleystay inuu dib u hanto soonka horyaalka adduunka kadib markii uu dhibco tirsi kaga guuleystay feeryahanka Lawrence Spinks. Muhammad Cali Kalay ayaa ku dhawaaqay sanadii 1989 inuu ka fariistay feerka. si kastaba ha ahaatee waxa uu Kalay mar kale sanadii 1980 dib ugu soo laabtay feerka, waxa uuna tartan feer ah kaga hor yimid horyaalka adduunka Larry Holmes. Kalay oo markaan rabay inuu markii afraad ku guuleysto horyaalka adduunka ayaa waxa uu ciyaartii wareegga koowaad joojiyay tababarihii Angelo Tonde oo garwaaqsaday in feeryahankiisa ay soo gaareen dhaawacyo xooggan. Muhammad Cali Kalay waxa uu gabi ahaanba ciyaaraha ka fadhiistay horaantii 1980 isagoo markaa da'diisu sii cagacagaynaysay 40 sano. dhowr sano kadib waxaana Kalay laga helay cudurka laleemada
Parkinson's disease. Maxamed Cali Kalay waxa uu geeriyooday 3 Juun 2016 Allah u naxariisto. Maxamed Cali Kalay waxa uu maalin Jimco ah taariikhdu ahayd 10 Juun 2016 lagu aasay qabuuraha Cave Hill Cemetery oo ku yaala magaalada ku dhashay Louisville, gobolka Connecticut, USA. Kalay waxa uu ahaa geesi gardarada necab oo aan la gamban inuu soo bandhigo waxa uu aaminsan yahay. Waxa uu ahaa halyey ku weyn qalbiyada shacabweynaha adduunka, waxaana safka hore kaga jiray feeryahanada iyo shakhsiyaadka kale ee saameynta ku yeeshay qarnigii 20aad. taariikhda adduunka ayaa Maxamed Cali Kalay mar walba xusi doonta.